وهبينما ثلاثة وأي تاريخ ذكو بيجنتها إلا بإلا بشة طبعا هذا لبض كون سجالي طبنكا وركا صفا صنع عاوة وحلا ديارة وريهنا فيروز جل حسين مهد سند عبدقني بشير حسين دولة الصومالية أياك هذا الشيء عبسيدة لقبه إن وبيدا شبه iyo jubba ay ku fatahaan deegaano hoostaga gobolada dalka qaarkood dhinaca kale xukuumadda ayaa sheegtay in uu socdo qorshayaal gurmad lagu gaarsiinayo deegaanada qaar ee dalka oo xilligan u baahan in gurmad la gaarsiiyo warkan ka soo baxay dawladda ee ku aadan cabsida taagan ee dhanka fatahaada ayaa imaanaya xilli deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalka ay ka da'een roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ورينا مهد عبد الرحمن متوكل أيها سوتشيدنيا حل قار كمذا برشادة كل قنجين كوبيذا شبه اللي يجبا أي كولعسين في التهدية السميان وبيذاسي إذا جيران أرنتاس يا هذا محمد عبد حير ماريه وزير كوزارة دور فافين تدقن كي الحيس كحكومة الصومالية أي شرح يقبها عبسيدة كجرت الدلكة كان عصدي برشادة كل قندقان ذاسي إن كفي جنان بدن حلقة موجيان دي روابك عسيسي السعودان واحد جرى ميلا بدن أو أي جرتو عبسي فتحات أي جرتو أما ميلاها قاركود أي بلابانتاي إن أي فتحها وبيغو قريو يو حافظة ددقية هاي أي بيهو كلا وأي كميتا هاي ميلاها أي لا حد فتحات وقريو حدثو كنو لي أي كاردي مقالة البلدوين سيدو كلانا وحي عبسي كجرتا ميلا كميدا جوهر يو سيدو كلا أو ديلة يا بارديرة يا ميرا بدن ودلك هدي روابكو هدبا انتي اي دعان اما اي كدعان دلكينا اما اي كدعان ميلاها وبيجدو كي معدان دلك إثيوبيا اي كوحيدان تحي لكن واحد جرتا دكتوني إن لقالو ودمان شعبك الصومالية ديجان صونياشا وبيجا ريريهيسا يا معمول قبليديادا يا دولة دحي الصومالية فدرالكا يا دولة يا هيداها عين ولا لها نهاية نعاوية انتو با إني وقادان إني جرتو عبسي فتحات مركا si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhibku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaaray iyo madaxda iyo sidoo kale dawladda federaalka anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah iyo beesha caalamka inay sameeyaan assessment ama daraasad horudhaca dhinaca kale wasiir Maareeye ayaa ka codsaday wasiirka wasaaradda gargaarka ee maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamsa in xilligan ay sii laba jibaaraan qorshayaasha lagu gaarsiinayo gargaarka aadanimo deegaanada looga baahan yahay gargaarka waxana uu sheegay wasaaraddu ay wado qorshooyinkii ugu dambeeyay oo gargaar ku gaarsiin lahayd dadka gargaarka u baahan waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dawladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso inay abaabisho sidii gargaar meeshii dib ka dhaco loo gaarsiin lahaa waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha United Nationka iyo hay'adaha kale khayriyaadka inay iyaguna caawiyo dadka Soomaaliyeed inay iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxa geysta shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka Soomaaliyeed isu gurmadaan sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan dawladda anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay'adaha gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo haysta inay u diyaar garoobaan in hadii ay roobabkaasi sii da'aan oo fatahaad dhacdo in ay si degdeg ah oo waxtar leh ugu gudbano meelaha ay fatahaadu ka dhacdo hadday ka badato bulshada meesha ku nool iyo maamulka meesha ka jira aad iyo aad baa u mahadsantahay fatahaado ay sameeyaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa saameyn ku yeesha dadka deegaanadaasi iyadoona marka qaar ay barakacaan boqolaal kamid ah dadka degan wabiyada hareerahooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Sochi ee dalka Ruushka halkaasi oo maalintii berri ah uu ka furmayo shirweynaha dhaqaalaha Ruushka iyo Afrika shirkan waxaa ka soo qayb galaya hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Ruushka dhaqaaliyahano caalami ah shirkado waaweyn oo dhanka maalgashiga ah iyo golaha guud ee ururka midowga Afrika shirweynahan oo socon doona muddada u dhaxaysa 23 ilaa 24
bishan ayaa waxaa madaxda dalalka ku bohoobay madashan ururka midowga Afrika maalgashatada iyo quburada waxa ay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada qaramada midoobay ayaa sheegtay in 100 kun oo shacab ah ay ku barakaceen fatahaad ku dhufatay bartamaha dalka Soomaaliya 100 shacab ah oo ka barakacay beledweyne ayaa gaaray deegaano hoostaga magaaladaasi gaar ahaan deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada beledweyne wariyeena Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofaysane ayaa soo koobay ugu yaraan 72 qof ayaa ku barakacay fatahaad ka dhacday beledweyne iyo tuulooyin kale oo ku hareeraysan bartamaha Soomaaliya iyadoo heerka webiga Shabeelle uu sii kordhayo hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sidaas sheegtay maanta oo Talaado ah xafiiska qaramada midoobay ee isuduwida arrimaha bini'aadanimada OCHA ayaa sheegay inay la shaqeynayaan mas'uuliyiinta maxalliga ah si looga jawaabo dhibaatada bini'aadanimada iyo hoyla'aanta dadka soo barakacay iyadoo loo baahan yahay sidoo kale musqulo degdeg ah arintaas oo walaac weyn dhalisay haddii fatahaada webiga gaarto heerkii ugu sareeyay waxaa loo baahnaan doonaa doomaha in la gaaro dadka ku nool meelaha go'doonsan ayay OCHA sheegtay saraakiisha hay'adda ayaa ka digay in daadadka kuwaas oo qaar ka dhigay wadooyinka kuwa aan la mari karin isla markaana kumanaan go'doomiyay oo la gaarsiin lahaa gargaar bini'aadanimo hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhammaan tuulooyinka ku yaala waqooyiga magaalada beledweyne ay saameeyeen biyaha fatahaada webiga Shabeelle isla markaana ay jirto cabsi laga qabo inay xanuuno ka dilaacaan halkaasi bulshada webiyada waxaa laga codsaday inay guryahooda uga baxaan dhul sare si degdeg ah roobabka ayaa sii socon doona 7 maalmood ee soo socda heerka webiguna uu sii socon doonaa taas oo sii xumeynaysa xaaladda fatahaada ayay OCHA tiri hoggaanka ahlu sunna wal jameeca ayaa ku dhawaaqay guddi cusub oo ka shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka galmudug xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ay soo magacawday guddi ay sheegtay dawladda in looga dambeyn doono arrimaha doorashooyinka galmudug warkan waxaa soo diray wariyeena Cali Xasan Barqalle Cali Gaab kulamo looga hadlay dardargelinta howlaha doorasho ee deegaanada galmudug ayaa saacadii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan ururka al-sunna wal jameeca oo hogaaminaya madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Mashaakir Cali Xasan kulamada ayaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka deegaanada galmudug iyo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka maadaama deegaanada galmudug ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug kulamada ayaa intooda badan lagu lafaguray sidii loo dhameyn lahaa tabashada ay qabaan qaybo kamid ah ururka al-sunna wal jameeca iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka deegaanada galmudug dhanka kaleetana ururka al-sunna wal jameeca ayaa ku dhawaaqay guddi farsamo oo ay sheegeen inuu daadihi doono arrimaha doorashooyinka galmudug guddigan oo 11 xubnood ah ayaa waxaa soo saaray madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Mashaakir Cali Xasan kaasoo sheegay in guddigan uu noqon doono mid ka looga dambeyn doono arrimaha doorashooyinka deegaanada galmudug balse laba kamid ah guddiga 11 ee magacaabay madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in xilkaas iska casileen isla markaasna aysan diyaar u ahayn inay ka mid noqdaan guddigaasi muddooyinkii dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waday dadaalo lagu dhameynayo khilaaf u dhaxeeyay maamulka al-sunna wal jameeca iyo dawladda dhexe waxaana wali socda dadaalo arrintaasi lagu xalinayo si kastaba ha ahaatee dhawaanayay markii wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ay magacowday guddiga farsamada iyo maamul sameynta deegaanada galmudug Cali Xasan Barqalle Cali Gaab wararka Shabeelle galmudug howlgallo mina baaris ah ayaa ciidanka dawladda waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ujeedka baaritaanadan ayaa lagu sheegay inay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada deegaanada maamulka Hirshabeelle wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku waramaya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle howlgallo kooban inay ka sameeyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolkaasi
howlgaladan oo ah ujeedkooda sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa waxa uu qaatay muddo kooban waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga oo la hadlay Shabeelle ay xaqiijiyeen in ay sii socon doonaan howlgalada guud ay ka wadaan halkaasi si looga hortago falalka lidiga ku ah amniga ee mararka qaar ka dhaca deegaanada maamulka Hirshabeelle gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolkaasi halkaas oo inta badan ay ka dhacaan weeraro qaraxyo ah oo lala beegsado gaadiidka ay la socdaan ciidanka Hirshabeelle ee mar halkaasi inta badanna waxa weeraradaasi sheegtay xarakada Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in la dardar gelinayo qorshaha howlgallada ciidanka ee ka socda dalka wasaaradda ayaa sheegtay in ujeedka laga leeyahay tahay sidii loo hanan lahaa guud ahaan amniga dalka wariyaheena jaamac maxamed saalax jaamac kadiye ayaa inoo faahfaahinaya maxamed xasan xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in ay qorsheynayaan howlaha ciidamada militariga xoogga dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa dhamaystirka deegaanada iyo degmooyinka ee gacanta ugu jira dagaalyahanada Al-Shabaab iyo guud ahaan gobolada dalka sidii dib loogu soo celin lahaa gacanta dawladda wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaa hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay tayeenta ciidanka xoogga iyo ka warqabka xaaladooda nololeed iyo dhamaystirka howlaha ciidamadaasi waxaan inagula dardaarmaynaa ama wasaarad ahaan inaga sugaynaa ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay sugayaan hawsha socota ee ah in ciidanka reform lagu sameeyo oo la ogaado muxuu ahaa askari walba goobta uu ku sugan yahay iyo tirada ciidankeena rasmiga ah aan haysano dhaqanka Soomaalida waxaa ka mid ah waxay ku maamulada Soomaalidu colkii hub samayso reerkiina xoolo dhaqo intaanaynu colka gelin ee aanu dalka xoray haddii aanaynu haysanin ama aanaynu ogeyn askari kasta goobta uu ku sugan yahay iyo tirada ciidanka aan haysano waxa weeye waxaan u maleynayaa wixii hore u soo jiray inuu jidkeeda kusii socono dhinaca kale taliyaha ciidamada dhulka sareeyo guute Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa balan qaaday dhankiisa in uu si habsami leh u hogaamin doono ciidamada isagoona xusay taliyaha in uu meel wanaagsan uu soo gaarsiiyay taliyihii ka horeeyay ee ciidamada militariga Soomaaliya howlgallada xoogga dalka waxaan aad iyo aad insha Allah u balan qaadayaa hadii Allah uu dareemo meelihii ay joogeen oo taliyaha ciidanka xoogga dalka uu geeyay inaan annagu gacmaha haysanna oo si wada jira oo hal far ah aanu ka sii ambaqaadi doono haddii Allah uu dareemo taliya ku-xigeenka ciidamada militariga Soomaaliya General Maxamed Cali Bariise ayaa balan qaaday waajibaadka loo igmaday in si cadaalad ay ku jirto uu u gudan doono isla markaana ciidamada xoogga uu ilaalin doono xuquuqdooda anigoo dareensan inay tahay mas'uuliyad weyn oo aad u ballaaran waxaan hortiina iyo horta Ilaahay hortii ku balan qaadayaa in waajibka dastuuriga ah wadaniga ah ee la dhiibay aanu guto sida ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta wasaaradda gaashaandhigga ayaa dardargelinaysa tayeenta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidii ay Al-Shabaab u la wareegi lahayd deegaanada iyo degmooyinka haatan gacanta ugu jira wasiiro ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa agab lagu horumarinayo jaamacadda ummadda faraceeda Cabudwaaq ku wareejiyay howlwadeenada jaamacadaasi mar kale warkan waxaan soo gaarsiiyay wariyaheena Cali Xasan Barqadle Cali Gaab wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo ay welinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo socdaal ku jooga magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa adeegyo lagu horumarinayo laguna tayeenayo tacliinta jaamacadda ummadda qaybteeda deegaanada Galmudug ee magaalada Cabudwaaq halkaasi gaarsiiyay qalabkan ayaa lagu wareejiyay maamulka jaamacadda ummadda qaybteeda deegaanada Galmudug ee xarunteedu ay tahay magaalada Cabudwaaq waxaana loogu talagalay in lagu taakuleeyo jaamacadda ummadda si ay uga faa'iideystaan ardayda Galmudug injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa waxa uu sheegay in taakuleyntan oo ay kamid ahaayeen agabyada waxbarashada loo adeegsado sida kombiyuutarro iyo sidoo kale agabyo kale oo jaamacadda ka saacidaya in sare loo qaado aqoonta dadka wax ka baranaya waxa uu sheegay in si wadi doonaan dadaalada uu ku garab istaagayo waxbarashada deegaanada Galmudug gaar ahaan jaamacadda ummadda faraceeda magaalada Cabudwaaq
wasiirka ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan siday u sameyn lahaayeen adeegyo kale oo lagu horumarinayo waxbarashada isla markaasna lagu taageerayo jaamacadda ummadda asagoo ballan qaaday inay sii wadi doonaan dadaalada ay taageerada ugu raadinayaan jaamacadda ummadda faraceeda deegaanada Galmudug mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka lagu wareejinayay agabka loogu talagalay in lagu tayeeyo waxbarashada jaamacadda ummadda faraceeda deegaanada Galmudug ayaa soo dhaweeyay dadaalada wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ee ugu jira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud wasiirka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalinkii shalay soo gaaray magaalada Cabudwaaq waxaana kulamo gooniyo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada asagoo kala hadla baahiyada ay qabaan iyo sidii wax looga qaban lahaa cali xasan barqadle caliga Galmudug madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu dib u soo celin doono duulaankii ka dhanka ahaa Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya tan iyo inta dagaalamayaasha Kurdiyiinta ay isaga baxayaan deegaanada xadka ka hor inta aan la gaarin waqtiga uu ku eegyahay heshiiska xabad joojinta madaxweyne Erdogan wuxuu yiri waa in 1300 maleeshiyaadka kooxda YPG ay isaga baxaan halkaasi ka hor inta aan gaarin saacada 4 waqtiga dalkaasi ciidamada Turkiga iyo kooxaha falaagada Suuriyaanka ah ayaa 9 bishan weerar ku qaaday waqooyiga Suuriya waxay ciidamadiisa gudaha Suuriya u galeen 20 mayl madaxweyne Erdogan ayaa dhawaan ogolaaday in la joojiyo howlgalka ka dhanka ah Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya go'aankii madaxweyne Donald Trump ee uu ciidamadiisii kaga soo saaray Suuriya ayaa waxa uu horseeday in Turkiga ay qaadaan tallaabo military xogaga Kurdiyiinta ah ee YPG ayaa ka sameystay bariga webiga Furaad ee waqooyiga Suuriya dhul maamulkiisa ay u madax bannaan yihiin ugu dambeyntiina dawlad ku meel gaar ah ee Suudaan iyo kooxaha falaagada dalkaasi ayaa wada gaaray heshiis nabadeed oo laga gol leeyahay in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo deegaanada ay horay u go'doomiyeen dagaalada 8 sano ee la soo dhaafay ka socday heshiiska ayaa ka dhacay caasimada South Sudan ee Juba waxaana kamid ahaa jabhadaha heshiiska la saxiixay dawladda kuwa ka dagaalami jiray gobolada Darfur Buuraha Nuba iyo Bull Nile toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii xukuumadda Khartoum ay shaaca ka qaaday in heshiis xabad joojin ah looga dhawaaqay saddexdaasi gobol Suudaan waxa laga hirgeliyay dawlad ku meel gaar ah markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Suudaan Umar al-Bashir waxaana hogaamiyaasha dawladda ay ballan qaadeen inay shacabka midayn doonaan warkii oo aad kala socoteen shabakada warbaahinta Shabeelle caawa saaxiibayaal waa naga inta